fadlan channelka subscribe noo dheh gambaleelka fur si ay kuu soo gaaraan fiidiyowyadeen aad u noqoto qofka ugu horeeya daawada. Like, share, comment qurux badan waad mahadsan tahay. Bismillah, soo dhawaada asxaabtayda qaaliga ah. Maanta waxaan idiin wadaa sidaad u jeedaanba alaabtaas cajiibka maasha Allah, faa'iidada badan leh, nafaqo jilciso maasha Allah. haddii aad ka cabanaysid inay timahaada ayna koreynin ayna bixaynin, haddii timii kaa jajabayaan, timii kaa burburayaan, afilaaqatadii tinta ay gadaal ka soo siibanayso maasha Allah, daawadeedii xalkeedii lagu hayaa ka faa'iidaysi. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. soo dhawaada walaaleyga qaaliga meel walba oo ka daawanaysaana nabad iyo caafimaad ku daawada. waa walaashin Xushmo oo idin la soo dhawaada fiideo cusub, aragti cusub, muuqaal cusub. soo dhawaada. Xushmo maanta waxay idiin wadaa sida halkaas ugu jeedaanba waa barbarooni, 6 xabo barbarooni aan ku haystaa. biyo yar ayaan ku soo shubay, dabka ayaan wax yar ayaan soo saarayaa oo waa lagu soo huurinayaa bas. hadda waan daboolayaa, in yar ayaa la rabaa umitadaas kuleelka bas le inay ku soo baxdo. wax weyn ma ahan. hadda waa kaasaa intaas le laga rabay bas. haddii aad dabka saarto wax badanna aad ku falfaliso, dabka wuxuu kaala harayaa ama uu kaala baxayaa nafaqadii aad ka rabta ayuu kaala baxayaa. marka sidan bas ayaa sameynaysaa oo dabka in badan kuma soo falfalinaysid. wax yar le hore le ka saaraysa, hore le ka soo qaadaysa, waana ku daboolaysaa markaa dabka aad saarto sida ay umitadaas kuleelka ayna uga bixin ay ku noqoto. asiga waan soo shiideynaa. nala socda, daawasho wacan, fiidiyowga dhammayso. waxyaabaha aan u isticmaali doono iyo waxyaabaha uu taro iyo faa'iidada uu leeyahay barbarooni. ka faa'iidaysta barbarooniga, fitamiino fara badan ayuu leeyahay. ha laga faa'iidaysta akhyaaray. waa kana hadda waa kana waan soo shiiday sidaad u jeedaanba waa kaasa sidaas daqiiqa ah oo dareeraha ah ayaan ka soo dhigay. waa soo shaandhaynayaa oo waxaan ka saarayaa qashinka ayaan ka saarayaa. inta yar ee dheecaanka ee bas ayaan u baahanahay. idinkana igala faa'iidaysta oo ka faa'iidaysi wacan ayaan idin leeyahay. haddii aan horta idinkaga dhaco faa'iidada uu leeyahay barbarooniga, meeshaan laguma soo koobi karo. fitamiino fara badan wuxuu aad qani ugu yahay. fitamiin C-ga ayuu aad qani ugu yahay. marka nagala faa'iidaysta. afkana waad ka cuni kartaa oo korkana waad marsan kartaa, labadaba waa u isticmaali kartaa. maanta aniga marka waxaan ka samaysanayaa nafaqo ama jilciso dabiiciya. timaha maasha Allah kaaga dhigayso. hadday timahaada daadanayaan, hadday timaha hoos ka soo siibanayaan, hadday jajabayaan ay kaa burburayaan. dad waxaa jiro tinta ayadoo is wadato oo aana burburin ay hoos ka soo siibanayso. dad way ka jajabayaan, dad waa qaleyl, tintii mar walba way qalalan tahay, dad timaha way ka babanaan yihiin. intaba waad uga faa'iidi doontaa, wax weynayna kuu qaban doontaa maasha Allah tabaarakallah. ka faa'iidayso. waa wax yaroo dabiici gurigaadana kuu yaalo oo meel walbana aad ka helaysid. waa ka hadda waan soo shaqshaqay oo waan ka soo saaray waxay qashinka ahay. wax yar oo daqiiq ahaan ka soo dhigo maasha Allah hadhowna timaha kaama galgalayso oo kaagama harayso. waxaan hadda sameynayaa digsigaana ku ridayaa, yacni waan soo qaboojinayaa laana way kulushahay hadda. digsigan biyo qabo kula shubaya waa in ii soo qabowdo ayaan rabaa. nala socda oo nagala faa'iidaysta. waa kana sidaasay ku soo baxday oo waxay noqotay wax yaroo dhaggan oo kareem ah ku soo baxday maasha Allah. ku dhahay lagama sheekay karaan ku dhahay faa'iidadeeda iyo waxtarkeedana meeshaan laguma soo koobi karo. nafaqo aad lacag ka soo bixisay, qarash fara badanna uu kaa galay, waxna aad ka faa'iidi weysatan ayaa kaaga fiican. waa hubaal, aniga ayaa kaa hubo. soo tijaabi 7 maalmood, soo isticmaal alaabtaan. waxaan ku dhahay maasha Allah timaha dhabarkay ku tagayaan ku dhahay dhabarka ayay ku tagaan. hadday tintaada jajabaysa jajab warkiis daa. hadday hoos ka soo siibanaysana tintaada tin adag oo baalweyn way ku noqonaysaa. madowgana lagamaba sheekay karaa ku dhahay maasha Allah way ku madoobaanaysaa ku dhahay. ka faa'iidayso. alaabtan waxa kale aan ku daray waxa waaye waa dhuuxa geela. dhuuxa geelana waa taqaanaa faa'iidada uu leeyahay. wax aan hadda maanta meeshaan aan ku soo koobi kara ama aan ku bayaani kara ma ahan. qof walba oo afka Soomaali ku hadlo wuu garan karaa faa'iidada uu leeyahay dhuuxa geela. waadna fahmi kartaan. hadda waxaan ku darsanayaa dhuuxa geela iyo barbaroonigana isku soo qasayaa. ka faa'iidayso wacan.
timahaada hadday timo qalalan yihiin oo kag ahan ku dhah maasha allah way isku dhacaanaan ku dhahay dhirarna horta warkiisa daa halkaasi iska tagaanaan ku dhah baal goray ay noqonayaan ku dhah maasha allah tabaarakallah waxaa samaynaysaa alaabtan markii aad marsato bac ayaad kula xiraysaa waa muhiim inaad bac kula xirto sababtoo ah waxay kuu galaysaa daldaloolka yar ee timaha kasoo baxbaxdo halkaas ayaa lasoo nafaqeynayaa waxa aad kor ka saaraysa ma ahan inaad si fiican ugu masaajiraysaa la rabaa oo aad 10 farood gelisid yaa markaadna aad bac kula xirto adiga muddo ilaa 1 saac haddii aad jaanis u haysato kula xir bac kula xir bacdaas ku soo hay timahaada haddii babanaan lahaayeen haddii ay kaa sikanayeen ay dib u sikanayeen xitaa wiilasha way marsan karaan oo inay timaha ka durgaan ka baqaaya ama ay meelaha babanaan ku leeyihiin maasha allah ku dhahay tabaarakallah hadhowdiina iskaga dhaq shaamba aan kiimika lahayn ama doobi shaamba ku dhaqo maasha allah tabaarak faa'iidada kale uu leeyahay oo ka helaysid waxa waaye madaxa wuu kuu dejinayaa madaxa wuu kuu qaboojinayaa haddii aad tahay dadka mar walba madax xanuunka badan leh oo raadiyo kaniiniyaasha waxyaabahaas madaxa ku dejiyo raadiyo waad uga fiicnaanaysaa madaxa wuu kuu qaboojinayaa haddii aad tahay dadka neerfa xanuunka madax xanuunka leh xitaa wuu kuu fiicnaanayaa insha allah alaabtan daa'imo wax badanna waad ka faa'iidi doontaa haddii ilaahay idmo